sheekh xasanow waa soo koobaya waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo shalay waxaan baraha bulshada ku arkay gabadh Soomaaliyeed oo kulliba wajigeeda waa niqaabnaa laakiin ilaahay magaciisa ku dhaaranaysa waxa ay sheegaysaa inuusan beenahayn gabadhaasi waxay leedahay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan maanta halkan ka sheegaa arrin qiso ah oo nafsiyan i haysato muddo aan la noolaay maanta dawadeedna aan qari waayay waddo aan u marana aan waayay aqoon aan hadda ku raadsadana haba yaraatee aanan lahayn haddaan aqoon lahay intaan ina iga foogaa laheed rajeyn lahaa laakiinse bidnillaahi kariim maanta helay waddadii aanu mari lahay insha allah ilaahayna ha ila garab galo ilaahayna ha ii fududeeyo awalan maanta waa maalin isniin ah waa maalinta oo dhashay nabigeena calayhi salaatu wasalaam bishaanna waa bishii oo dhashay nabigeena waan soomanahay sijaayadii aan ku dukan lahaa salaada casir ayaan dul fadhiyaa wallaahi bilaahi tallaahi been ma sheegayo arrintan i haysatana waa arrin run ah marka arrintan wallaahi bilaahi tallaahi waa arrin nafsiyan ila nool oo been haba yaraatee ama kaftan ama qiyaali haba yaraatee aysan ku jirin magacaygu waa Faadima maasha Allah waxaan jeclahay Sheekh Xasan Alwaaji halkan waxaa fariinta koowaad ugu diraa hooyadiis hooy macaan Ruqiyo hadaa i daawanaysid wiilkaaga ugu yaraan madaxuu ku saaran yahay madaxaad u saarantaan dhehee cafoon hadalkaagana ma diidi karo gawar ilaahay dartiis u jeclaanahay u jecel ilaahay dartiis ku jeclaatay kalimatullah allah ilaahay dartiis quraankaas wanaagaas wax kaloon ku jeclaada habeeraatee ma jiraan caanimo iyo waxa social media ka jira marka aan iraahdo insha Allah waana rajeynaa aanan ogeynin inuu booskiisa buuxo ninka ragga afar ilaahay ugu talagalay waa laga yaabaa inuu booskiisa buuxo way dhici kartaa laakiin hadduusan booskiisa buuxin ee wax ka dhiman yihiin laga yaabaa nafsiyan inuu igu qancin ayaduna way dhici kartaa balse waxaan u sheegaa maantay tahay maalin isniina aanan been sheegin يوم كل maalin kastaysan banaaneen ama saacad kastaysan beenta banaaneen laakiin maanta ilaahay dartiisan u soomanahay sijaayada salaada ku dul fadhiyaa ilaahay been ha iga haayo been igama ahan hadalkan waa dhab waa run waa iga ilaahay dartiis mooyee wax kale aan ku jeclaadan haba yaraatee malan hooyadaana fariin bay u dirtay khayr Allah siiyo waxay leedahay Sheekh Xasan fariintan hal iga gaarsiiyay gabadh kale dabcan soo gudbisay waxay leedahay gabadhan hal iga gaarsiiyo Sheekh Xasan fariin Sheekh Xasan waan jeclahay inuu boos ka banaan yahayna ma hubo laakiin waxaan rajeynayaa marka anigu kulli xogaal baan ku ahay adiga laakiin gabadhaas clipkeeda ma daawatay adigu gaarsiin ma lagu dhaadigana أنا طبعاً أنا كويدية سؤال كسو جارسي بارك الله فيك أولاً نعم وقعت دوان فرينتا دينك جارت نعم وأنا ارتوان ويسوقات فرينتاسي يقول ولا شيء ما دام إلهي درتي يجعل شان إلهي درتي الله وجعل هذا ده أنت إلهي هو تلقلين وان هستا هدي بوس بنانا لهانا وان قرا وكيل لا قفت برا بلشدنا كهدلي ودعدنا من كم وقت الهي درتي او نفتيس اوهبي ورنتي لما ضيعي كرو لكن دي شرعيغا iyo diinta ayaa reebayso marka waan ka cudar daarana gabdho noocaas badana way jiraan laakiin social media ma soo dhigaano si oo khaas ah ila soo xiriira laakiin taas wax kale kama ahan nin lama weyn diin jecel iyo quraankaasi intaana dad isku jeclaan anaka maanta mar waliba sarano ilaahay dartiisa soo jecelnahay intaasun bay ka tarjumaano marka ragooda ilaahay dartiisa soo jeclaadaan waa un maxabadii ilaahay dartiisa kaliya laakiin gabdhihii waxay jecel yihiin inay soo dhawaadaan oo dareerkii ka mid noqdaan ama ehelkii noqdaan taas waxay ugu dhiirigelinayaan marka in runtii kalsooni badan ay igu qabaan
gabdhaha muslimaadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo xubbiga tan ilaahay dartii ah iyo tan oo jaceelkan hadii isku darmaan wax ka fiican aysan jirin marka waa u mahadcelinaa sida sharafta kalsoonida ii siisay wayna mahadsan tahay waana runtii u mahadcelinaa waan daawaday hatta committee qaaraha la ii soo diray waxaan la hadlaa marka meeshan fani ugu diraa runtii dadka caynaya oo aflagaadeynaya horta waxaa la jeedaa dadka commentiyada dadka ka daba galay oo mad wax ka sheegayo dadkaas waxaan leeyahay horta waa samafalayaal aan is ogeyn qof dad caynayo caayid mar walba caay ka shaqeynaa qofka inuu ceebay ka shaqeynayo waa samafale is ogeyn waxaa la jeedaa qofka markaad caysado xumaysid ajirkaadu qaadana salaadaada soonkaadu kula leeyahay ajir baad samafalaad is ogeyn waa خير بو شقيسنا ما وشقينا ما كنت لقلين مع ذلك هذا خير كاس وحوسيه قف دعبيه marka ruki dabaalna meesha ugu dambeeyay waa inaad qof aan nacabtahay wax qaali ah siisadana adoon ku talagelin u niyeysan ajirna aad ka raadinin marka waliba ajirna aad ka helin nin baa wuxuu dhahay oo saalixiinta kamid aha hadaan wax xaman lahaa hadaan xawaid xamanayo hooyan xaman lahaa u dhahay waayo hooyada waxaan ka jeclahay malahan amalka saalixigan in ayada u gudbo qofka intuu qaadan lahaa in hooyadii ajirkii hesha ayaan la jeclahay marka xamanayo dadka caynayo oo caada ka dhigtay dadka cayna runtii waxaan leeyahay samafaleetiin hadaad samafalnimadaas ku sii jiraysiin sii wada oo qofka nacibtihiin soonkaadi salaadaadi kastiiraad shaqaysatay iska sii hadii kalena waxa aad u wanaagsan in intii laga haro arin wanaagsan ma ahan qofaan ku jeedin waxaa la mid ah qof maalin waday gaari uu waday oo soconayo mid ba soo jeeday agtii soo maray isma maqlaan caay wuxuu caayay aan wiilgii maqlay aabaha iyo hooyada waan la hadlo waxaan ku yiri dambin waa kasbatay ninkii aad kulleen lahayd kuma maqlin laba khasaara qabta dambi adig iyo munkar nakir ay ka qorayaan ninkii aad ugu talgashay aqal shay waxaba fiicneen hadaa caayso inuu maqlo oo yara danqado saad ciilkaada nooc ma oo يعني أوبر دنتو لكن نينكين ما مقشي دنبن واد قشي قاريغادا ku dhex jirta marka ina aamusnaato ilaahay hadiyo allah ku wanaajiyo hadaladu wanaagsan mar waliba afkan ay soo maray aad u wanaagsan maadaama waxa weeyaan labada marag ay nala joogaan mar waliba xumaantii sanada ay qoraan marka waxa leedahay koontiyadan la isku haynayo dadkeeda leeyahay dadka caynan la ogeyn magaciisana hadan maan magac been wata oo magiisa ahayn wuu gabaday wuu dhuuntay sadaqaadkiina wuu bixinayaa khayrka ayuu arrinta wax ku keentay commentiga gabadhan muuqaalkeeda la soo gabadh aad loo caayo wax baa laga sheegay ma daan qof ku soo sheegtay in wax laga sheegayo ma daan tayda kama hadlo anigu de iska caadiyo qofka anaga waxaan dhahnaa raxweyntu waxay dhahan lan hunduro mukudaan kudo oo maxaa ay ku noqonaysaa lan jeef mukudaan kudo waxa laga wadaa qof sariir saaran inuu turaantorada laga ma yaabo oo jiifa ma soo kicin marka laakiin markuu soo kaco ayuu turaantoro bilaabo moogtaa idan qof hool u kacay oo gafa oo saxa oo qaldama wax kasta way dhacaan marka taas waa anaaba ku talagalay oo inaan dadkii wax u sheego kelimada iga fakan karto waxa munaasab ah sheegi kara arintii oo kala hadda oo leego qabsanayo dad badan ay comment ka bixiyeen aan ku talgalin oo dantii as barbardhigi kacbada iyo hargeysa oo kale qof bin aadam waa daciif waay tay walaalka markuu gafo ina ceebtiisa ad wax ilaalsada wanaagsan oo way abasturtid way ana kana cuyuban nahay dadka dhanna waa wada indho wax bay arkaan marka maalintan hadaa qof walaalka ku mashquusho adna maalintaad baxar gasho ilaahu ku fadaxayna waan la arkay marka in ilaahay ku asturo ayaa wanaagsan laakiin qofkii ilaahay walaalkiisa asturana ilaahay ba asturo qofkii walaalkiisa fadaxayna ilaahay ba fadaxayo marka tii ilaahay way adag tahay waa fadaxad meesha ugu weyn oo dhabar jab ugu dhacayso duu ku fadaxayo badana ilaahay noo naxariis badan yahay adoomadiisa ma qabto ma sha Allah marka laga yimaado in aynu halka ka cadeynayna in afartii xasb joogan ama afartii boos bay ka buuxaan gabadhaas muslimadda Soomaalida fariinta ku soo fartay wax fariin oo aad ku celinaysaa ma jiraan wallahi fariinta qeylna waxa weeyaan
فرينتا وعلنا وحويان إن الله جل جلاله بدل خير قبوسيه نعم وناكسن ونيجا في عن ضد بدنا إيجا في عنه ثاني بود ويسوقها وحنا ضد إيجا قرآن بدن إيجا في عن إيجا قرح بدن إيجا وناكسن بجوجو إلى وحنا ويدينا إن مد أكو قناعه واجد أكو هالمانطة أعطوا قرح بدن أهل القرآن أنت إيجو جعشها كبدن هيستو إنه إلهي سيب سبحانه